ugu horreyn Dr. Adna aadan soo dhawow shirkan ay maanta jaacadii Camuud qabatay iyo saad u aragto. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Shirkanu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalkiisa. Mana aha markii ugu horeysay Camuud aanu ka soo qayb galno shirar caynkaas oo caalamiya. Waxay ka turjumaysaa horumarka waddankeenu gaaray. Waxay ka turjumaysaa qiimaha aqoonta tayada leh ay leedahay. Marka waxaan ku goobaabinayaa dhalinyarada meel kastay joogaan inay cilmi raadsadaan oo cilmi tayo la raadsadaan oo aan la camaynin way jaamacadaha iyo maxaan ku raraa macaahida si sahlan oo fudud shahaadooyin u bixisa turub ay siiyaan kama duwana waa warqado laakiin waxaan doonayaa inaynu magaceena iyo aqoonteena iyo tayadeena ay kor u kacdo marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar walbaba anoo hawlo badan leh ayaan maanta u soo kacay inaan tan soo qayb galo qaabka ay jaamacaddu agaasintay balse shirku qabtay ma sha Allah waa heer sare ku dayasho mudan aad baad u mahadsantahay hooyo shirkan noocan dalkeena maxay ka bedelayaan hadii la sii joogo waxay ka bedelayaan inaan adduunka soo gaadhnay ay ka turjumayaan dalal yar ayaa halkaa aynu soo gaadhnay muddada yar ee gaaban ku soo gaadhay marka waxaynu soo dhacsannay waxaynu mutaysanay waxaynu adduunka kalena uu ku dhiiraday ama uu kalsooni ku helay inuu waddankeena ku yimaado nabadgelyada quruxda way aqoonta iyo maxaan ku raad tayada taala awdal waxay ku magac wanaagsan tahay quruxda beeyada oo kale maahay waa aqoonta iyo nabadgelyada ugu dambeyn fariinta jaamacadda u dirsan waxaan leeyahay hambaliyo waanad ku mahadsantiin baan leeyahay waxaad noo horseedeen wax wanaagsan